indhahaan kuu jeexi doonaana kuu jeexaya ballan waxaan kugu qaadayaa kelmad dambe haddaan kaa maqlo in aan adiga aynu ismudan doonno adiga baan kuu sheegayaa hadday aad u qaadatay inanka yaray inuu keligii fadhiyo meesha adeer anaa joogaa anigaa bartii suldaan maxamed fadhiya haddaad indhaha qarisay indhahaan kuu jeexi doonaana kuu jeexaya ballan waxaan kugu qaadayaa kelmad dambe haddaan kaa maqlo in aan adiga aynu ismudan doonno adiga baan kuu sheegayaa aflagaadooyinka aad ummadda soomaaliyeed u geysatay nooc kasta oo ay tahay hadday tahay abtiyaasha oo waxaan dhaqanku geyin aad ku sheegtay oo tidhi waa garac abtigay yaa annagu kaa qabali mayna dee waxaa adeer reerkaaguna xaal kamuu bixin waxaasoo aflagaada ah inanka yaree wasiirka ah ee leh waxaan ku taageersanay boqorka hadallada gefka ee caynkaasoo kale ah waxa weeyaan wasiir Yoonis baad u jeedaa Yoonis baan u jeedaa ninka la leeyahay cadaalad buu joogaa aniga cadaaladii ma joogo kaasoo kale deebaanu wasiir Yoonis Axmed Yoonis aanu ahayn wasiirka cadaaladda muxuu u geystay deegaankaaga wasiir Yoonis deegaankayga wuxuu u geystay markii la caayay deegaankayga waa ninkii intuu qoslay yidhi waan ku raacsanay waxaa dhibaatay aflagaadee uu sameeyey ninkaasi xirsina waxaan leeyahay xirsi iyo habar jeclaba waxaan leeyahay waa inay xaal ka bixiyaan maxay xaal ka bixinayaan xaal joogta ka bixi waxay xaal ka bixinayaan kastamar maanaan ahayna waxaanu ahayn deegaankii gogasha u dhigay deegaankii soo dhaweeyey deegaankii lagu fadhiyey gogashiisaanu ahayn laakiin dad caynkaa loogu gafo maanaan ahayn annagu kulan wacan daawadayaal idlahantiin baa waxaa hadda barbarkayga fadhiya boqor Raabi oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka Somaliland kuwooda ugu faaca weyn boqor ugu horeyn waan ku soo dhaweynayaa muddooyinkii u dambeeyey waxaa taagnaa oo hadalhayn badani ka taagneyd boqor cismaan aw maxamuud boormadow oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka ee Somaliland inuu sheegay in aan la isku raacsanayn sandalada suldaan Daawud isla markaasina ay tahay sandalad cid gaara waxa weeyaan oo aan ahayn sandalad si guud uga dhaxaysa ma garansay Somaliland bal arintaasi ka war bismillaah boqorku بريهان أردن واحد مودة أن وديجانك ورنتي وكوهايو أفلقادوين فربضن أو آدو فربضن وكوهايو ما نقرن أي ديجانكو سببتو أفلقادوين كاو وهاينا ما نقرن وايو إريا بدن بكسو بحبحية وأنا كدواقي كرهين marka waxaan oran lahaa boqorka aflagaadooyinka iyo dagaalka aad reerka kula jirto deemaan ka hadli waayin afkuna nama goona waxa weeyaan waan xushoonanay waxaan u diidanay deegaankaaga inaanu wax nidhaahno waxaan u diidanay inaanu deegaan kala wax nidhaahno waxaan u diidanay inaanu adiga wax ku nidhaahno annaga oo damiirkayaga iyo dadnimadayadu ayna xidhayso marka waxa weeye waxaan xasuusnahay aflagaadooyinka oo ka mid ah inaad hablahayaga caydo oo aflagaadayso in aad deegaamadayada oo dhan aad aflagaadayso oo tidhaahdo marna way sii socdaan oo baryay la socdaan marna way soo socdaan oo baryay la socdaan waxaan garan waayay waxa laga baryaya adiga eed hayso ama ku yaala ayaan garan waayay anigu marka waxaan leeyahay aflagaadooyinka caynkaasa iyo hablaha aad caayso iyo deegaanka aad caayso adiga ayay runtii nusqaan kugu tahay sandalada guud garxajis amba se isaaq amba se Somaliland aad aflagaadaynayso marka uu dhintay odaygii weynaa meesha fadhiyay markii suldaan maxamed allah u naxariisay suldaan cabdilqaadir marka uu geeriyooday annagaa bedeloodee joogna halkii hadday aad u qaadatay inanka yaray inuu keligii fadhiyo meesha adeer anaa joogaa anigaa bartii suldaan maxamed fadhiya haddaad indhaha qarisay indhahaan kuu jeexi doonaana kuu jeexaya waanad iska hadasho waad iska tidhi hadallada aad leedahay marka waxaan kuu sheegayaa
aflagaadooyinka aad ummadda soomaaliyeed u geysatay nooc kasta oo ay tahay hadday tahay abtiyaasha oo waxaan dhaqanku geyin aad ku sheegtay oo tidhi waa garac abtigay yaa annagu kaa qabali mayna dee waxaa adeer reerkaaguna xaal kamuu bixin waxaasoo aflagaada ah ugaaska ciise ugaas rooble markii la boqray ugaas ciise waa annagaa joognay haddaanad joogin adugu annagaa joognay guri baa lagu xidhay somalilan oo dhan oo taagan ayaa guri lagu wada xidhay somalilan markii la boqraayey gandihii ciise iyo dhammaantood ugaaskii ay boqrayeen intay caleema saarayeen waxay yidhahdeen annaga naloomana boqro nalagalama dambeeyo nalagama horeeyo ayayna yidhaahdeen haddaanad adigu joogin orodoo dadkii joogay soo warayso waxaad tidhi waa la keenay laguma caleema saarin beentaa weeye annagaa joognay waa lagu caleema saaray waa lagu dabaaldegay waanu ka sacabinnay halkii somalilan tayadii kale tagtay ee lagu casuumayna qololbaanna lagu xidhay intii la caleema saarayoo oo dhan markii la caleema saaray baa qololkiina laga furay oo aanu tagnay xafladdii taana been baad ka sheegto aflagaadooyinka deegaamada ku samaynayso wax lagaa yeelaya maaha ereyada aan ku odhan lahaa maanta kolley maanta ku odhan maayo oo dib baan u dhiganayaa laakiin ballan waxaan kuugu qaadayaa kelmad dambe haddaan kaa maqlo in aan adiga aynu ismudan doonno adiga baan kuu sheegayaa oo mar dambe haddaad soo hadal qaaddo xabuusho iyo waxbaad ka hadlaysaae annagoo googasha kuu fidannay ood googashii iyadii ku fadhido ayaa odhan weyna waxyaabaha qaarkood markaasaad adiguna waxaa noogu sheekaynaysaa waxaanu kaa aqbalayna maaha kaamana yeelanno dibna uga fadhiisan mayno mar dambena ma odhan kartid waxaas iyo wax la mid ah waxaa ii raacayntaa xafladdii lagu caleema saarayey suldaanka gadabuursi ama samaroon ama reer nuur suldaan maxamed suldaan saleebaan xafladdii ay ku sharfeen dadka lagu marti qaaday ee ummadda lagu soo dhoweeyey waxaad doonaysa shirqool bay hayd adiga iyo xirsi iyo inanka yaree wasiirka ah ee leh waxaan ku taageersanaya boqorka hadallada gefka ee caynkaasoo kale ah waxa weeyaan wasiir yunis baad ujeedaa yunis baan u jeedaa ninka la leeyahay cadaalad buu jooga aniga cadaaladii ma jooga kaasoo kale wasiir yunis sababana wasiirka cadaaladda madaxweynahana waxaanu leenahay shirqool adiga lagu samaynayay bay ahayd xafladdana shirqool bay ku samaynayeen ma adigay kuu jeedeen dowladda ma madaxweynahay u jeedeen mise waxay u jeedeen suldaanka la caleema saarayo shirqool bay ahayd rag isog bay ahaayeen hadallo gefe bay kaga dhawaaqeen halkaa xafladdu waxay doonayeen in fulkaana ka kaco tiina ilaahay baa ka badbaadiyey oo dadkii tegey baa dulqaad yeeshaye waxay ugu tala galeen in lagu kala kaco boqor sidee baanu wasiir yunis axmed yunis aanu ahayn wasiirka cadaaladda muxuu u geystay deegaankaaga wasiir yunis deegaankayga wuxuu u geystay markii la caayayey deegaankayga waa ninkii intuu qoslay yidhi waan ku raacsanay waxaa dhibaatay aflagaadee uu sameeyey ninkaasi waan ku raacsanay waa ninkii yidhi weeye waxaanu ka aqbalanayna maaha madaxweynahana waxaanu leenahay shirqoolku dee aduu kugu socday annagama maahaba marka kaasoo kale inuu wasiir u ahaado dadkana ma geeyo mana ahaado wax la aqbal karayana maaha boqor dadku waxay isweydiinayaan boqor cismaan aw maxamuud buurmadow isaga yaa caleema saaray halkee lagu caleema saaray goormaasle caleema saaray taa aniga hay weydiinayna ninkaas waxa weeye ninkii ku caanbaxay aftuubka odayaasha ninkii weynaa 80 jirka ahaa ee juujuule waa ninkii aftuubay ninkaad ii sheegaysaa siduu aftuubay waa kii ka aftuubay hargeysa ee geystay buuraha dee uu yidhaahdo waan deganay ya marka anigu taa garan maayee laakiin waxaan leeyahay guddoomiyaha xisbiga aanu ku wareejinay xirsi eele macmiil bay ii yihiin deegaanku martida u ahaa xirsina waxaan leeyahay xirsi iyo habar jeclaba waxaan leeyahay waa inay xaal ka bixiyaan
maxay xaal ka bixinayaan xaal joogta ah ka bixin waxay xaal ka bixinayaan customer maanaan ahayn waxaanu ahayn deegaankii gogasha u dhigay deegaankii soo dhaweeyey deegaankii lagu fadhiyey gogashiisaanu ahayn laakiin dad caynkaa loogu gafo maanaan ahayn anagu marka waxa weeyaan waxaan idiin sheegayaa inay meel ka dhac tahay inaan cidi qaadanahayn inaanaan customer ahayne aanu nahay gogasha lagu fadhiyo hadday cajabin weyday gogashu adana xaal noo keena